wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha Marwo Khadiija Maxamed Diiriye iyo wafdi heer sare ah oo ay hogaaminaysay ayaa waxa ay soo gaareen magaalada tan London ee wadankan Ingiriiska. wafdigaasi la socday ayaa waxa ka mid ahaa xubno ka tirsan wasaaradaha xukuumadda federaalka Soomaaliya, xildhibaano iyo wasiirada haweenka iyo xuquuqda aadanaha maamulada Galmudug iyo Jubba, iyo xubno ka socday bulshada rayidka isla markaana waxa ay ka qayb gali doonaan shirka London Global Summit oo dhawaan ka furmaya magaalada tan London. wasiirka iyo wafdigii ay hogaaminaysay ayaa waxa garoonka diyaaradaha Heathrow waxa ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Ingiriiska oo uu horkacayay safiirka Soomaaliya u fadhiya wadankan UK, Ambassador Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalolshe. tala wasiir ku soo dhawow London anigoo ku hadlaya codka jaaliyadda Jubbaland ee wadanka UK. waxaan soo dhaweynayaa wasiirka haweenka Khadiija Maxamed Diiriye oo aad iyo aad uga soconay TV-yada waxyaabaha ay qabatay aadna aan u jecelahay inaan ugu soo dhaweyno wadanka UK. adiga iyo waftigaad hogaaminaysa waa soo dhawow baan ku leenahay Khadiija. Soomaaliya waa ku taqaanaa, sidoo kale Khadra Burxan oo ayadana ay muuqato muxuu ahaa dhammaan Galmudug ma sha Allah ayadana waa soo dhaweynayaa. sidoo kale qamar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكفر حسنا هاي بنتي إنان كسر دوينو جرانك هيترو لندن وفدي حكامين يسوي وزيرك وين كي يحقق الإنسان كدولة فدرال كصوماليا وكوكوان تنفر بدن أو كسرعة قبلة الدلك هي دولة الدحيح سودو هذا كمان فرق سودو هذا عبارة يعني سودويني إن دت كانوا دت دكان ودك UK قاسة لندن أو الصومالي أو كوكوان أو ميدايسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تسنتين لمانتين مجتمع كنور عرقن إنجليزك هل كان بسودو وهرمود كي هاي سفير كصومالي أفردية دالكان إنجليزك walaalkay Ambassador Sambalolshe. marka anagu waa dhannahay, waa nimid wafdigu waa ballaaran yahay. maanta berri waa la iska daba imaanaya haddii alla idmo. wafdigan hogaaminayo wuxuu ka mid yahay qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, xubno ka socda golaha shacabka, xubno ka socda gobollada dalka, gaar ahaan wasiirada haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee Galmudug iyo maamulka Jubba ka socda. waxa aad u baaxad weyn xubnaha ka soo qayb galay ee ka socda bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan, civil society-ga. marka shirkana waa shir aad muhiim u ah oo London Global Summit-ka kii sanadkii hore dhacay laga sii ambaqaadayo waxyaabihii ka soo baxay qodobadii ay Soomaaliya ku lahayd uu saxiixay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Madam Zainab Bongura. marka sidii loo hirgelin lahaa xadgudubyada ka dhanka ah haweenka gaar ahaan kufsiga. marka waxay noo marayaan talaabooyinkii aan annaga hore u qaadnayna in aan maanta haysano qorshe cad oo aan soo bandhigayno haddii Allah awoodda la ogolaado, kaasoo ah kan lagu ciribtiraayo xadgudubka kufsiga ku salaysan. marka aad u mahadsantihiin. maalmahan waa idinla joogi doonaa. Yusuf Garabey, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, London.